asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada muuqaalkan. waxaan ku eegi doonaa qodobo dhowr oo ku saabsan dunida kubadda cagta. haddii aad nagu cusub tahay daawade fadlan subscribe noo saar, sii sheer gare saaxiibadiina la wadaaga. warbaahinta ABC ee wadankaasi Spain, gaar ahaan warbaahin la yiraahdo waxay u janjeertaa Madrid ama Real Madrid ama Malaki, ayaa iyadoo ay tahay isla markaana waa kuwa ugu afka dheer ama markaa ugu firfircoon wadanka Spain ayaana lagu tiriyaa. waxaa habeenkii xalaytooda war ay qortay isla markaana ay xigteen dhammaan warbaahinta dalkaasi Spain. macnaha waxay tahay Mundo Deportivo, Sport, Marca, AS iyo waliba kuwa kale. waxaana ay tilmaamaysaa naadiga kubadda cagta ee Madrid inay wado qorshe ku saabsan xidiga Vinicius Junior, kaasoo mushkilado kooxda la kulmay isla markaana dhamaystirkii la hadda uusan ka hormarin. dabcan Madrid waxay doonaysaa wiilkan inay dirto isla markaana safka kooxda kubadda cagta ee PSG ay u diri doonto, laakiin ma aha mid hadiyada ama markaas iyadu bilaash loogu dirayo. waxay doonayaan qayb inay kaga dhigaan heshiiska la filayo Kylian Mbappe inay iyagu ka gudbiyaan, isla markaana ay doonayaan garoonkooda Santiago Bernabeu iyagu inay ku keenaan Vinicius. wadogtiin isagu ninka qiimaha waxaa la sheegaa 200 ilaa iyo 160 ilaa iyo 100 milyan inay u dhaxaynayso, walow markii dambe la sheegay 60 milyan inay yimaadeen qiimaha lacagaha markaa wiilkan lagu doonayo, sababtoo ah mustawihiisa hoos u dhacaya markaa ka muuqda sida laga filayay inuu horumaro cagsigeeda. codeyn ay qaaday shabakada Mundo Deportivo habeenkii xalaytooda ahaa waxa ay dadku weydiisay haddii qayb uu ka noqon karayo xidiga Kylian Mbappe heshiiska lagu keeni karayo Vinicius la markaana lagu dirayo PSG, munaasab haddii ay tahay iyo haddii kale, iyo haddiiba Madrid ay waajib ku tahay wiilkan inay dirayso. 70% dad fara badan oo iyagu codeeyay waxay u codeeyeen in Vinicius laga diro kooxda kubadda cagta Madrid, halka 26 markaa 8 iyagu ay dalbadeen kooxda kubadda cagta Malaki wiilkan inuu sii joogo, inta kalena iyagu ay ka aamuseen. laakiin Vinicius nadiga kubadda cagta Madrid way diraysaa, waana wax u fiican baa leeyahay hadiiba ay helayso laacib kale oo daayar ka qiimo badan, ka fiican, ka tayo wanaagsan, ka dhamaystir fiican, dhan kastabana markaa kaga wanaagsan waana Kylian Mbappe. laakiin lacaga bay ku dari doontaa, ay ku khasbanaan doontaa ugu yaraan 150 milyan oo kale inay ku darto Vinicius Junior. qasaarana maxaa yeelay Vinicius 50 milyan lacaga ama sidaas ayay noqonaysaa, ama xitaa 50 milyan inay ka soo bixiyeen, isla markaana ay noqonayso qiimaha xaqiiqiga ee safka kooxda kubadda cagta Madrid uu ku yimid, walow la sheegay qiimaha in la qariyo isla markaana lacag kale ay jireen oo la bixiyay. laakiin naadiga kubadda cagta ee Madrid marka wiilkan waxa la leeyahay Kylian ayuu qayb ka noqon karayaa heshiiska kooxda Malaki ay ku doonayso, waana wax u wanaagsan hadiiba wiilkan marka laga dirayo safka isla markaana lagu helayo xidig ka qiimo badan marka la eego. mowduucana kale waxa uu yahay mid markaasi naadiga kubadda cagta Barcelona ku saabsan. mowduucana waxaan ka hadli doonaa ninka Juan Laporta iyo cilaaqadiisa wakiilada caanka marka laga hadlayo, iyo saameynta markaasi ay ku yeelan karayso in heshiisyo cusub uu keeno xilliyeedkan kooxda kubadda cagta Barcelona. sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee Lukaku iyo waliba Barcelona ayaan eegi doonaa iyaduna. dabcan marka laga hadlayo waxaa jira wakiilo aad iyo aad u firfircoon bal ka saameyn badan xitaa xidigaha kubadda cagta qaarkood. waxaad ogtihiin Ronaldo, Messi iyo waliba inay jiraan xidiga kale oo superstar ka ah dunida kubadda cagta. sida caadiga wax kasta oo markaasi mashruuc meel laga bilaabana waxay leeyihiin superstar. marka adeegtii wakiilada waxaa jira rag superstar ku ah. marka la eego rag fara badan baa markaasi saameyn ku leh wakiilada. waxaa kamid ah Tim Hager, isagu wakiil waa xidiga fara badan marka la eego, oo Antoine Griezmann, Sakho iyo rag kale ay kamid yihiin, waxaana markaa uu isagu kamid yahay kuwa ugu caansan. sidoo kale ninka caanka ee Beni Zahavi ayaa kamid ah ragga lagu qadariyo markan isla markaana aad iyo aad isagu loo yaqaano, waxaana wakiil u yahay xidiga fara badan. Beni Zahavi waad garanaysaan, xidigo hadda xitaa uu kamid yahay David Alaba hadda kooxda kubadda cagta Barcelona ay doonayso, iyo xidiga kale ayaa markaa wakiil ka yahay. Mini Raiola ayaa kamid ah, waad garanaysaan, oo Pogba, Zlatan Ibrahimovic, rag kale oo wakiil ka yahay ayaa jiro caanka marka la eego. sidoo kale ninka Juan Bernat ayaa kamid ah isla markaana caanka. marka ragga waanu garanaynaa aad baana markaa loo yaqaana, laakiin mowduucina xaqiiqiga aan u gudubno. Juan Laporta shaqo adag baa u taala gudoomiyaha cusub ee kooxda kubadda cagta Barcelona. si rasmi ah booskiisa ula wareegay, isla markaana ninkan kooxda kubadda cagta Barcelona sanadkii 2003 ilaa 2010 ayuu kooxdan soo maamulayay. hadda mar kale ayuu doonayaa kooxdan meel dheer inuu gaarsiiyo, isla markaana
Barcelona waqtiga hadda la joogo waxay u baahan tahay isbedel marka la eego fursad wanaagsan ay u noqonaysaa in laga qaado kooxda fursad wanaagsan ay u noqonaysaa in kooxda kubadda cagta Barcelona ay ka mid noqoto marka sanad iyo fursad wanaagsan ay u noqonaysaa Barcelona inay sanadkan iyadu ku soo beeganto waqtiga adag ee marka uu ku jiro ninka la yiraahdo Juan Laporta iyadoo la qaadayo sharciga dhaqaale wanaagga isla markaana la isku xisaabin doonin Juan Laporta waxa la tilmaamayaa sanado badan inuu ka maqnaa marka la eego Barcelona laakiin haddana wuxuu xafiday dhammaan wakiiladii marka dunida kubadda cagta cilaaqadii uu la lahaa fiiri Beni Zahavi waa mid kamid ah kuwa ugu caansan Mino Raiola, Jorge Mendes iyo kuwa kale hadda wuxuu doonayaa inuu ku dhiso kooxda kubadda cagta Barcelona cilaaqada waa wax aad iyo aad u muhiim ah isla markaana wax badan aad ku sameyn karaysid waayo wakiiladan waxay hayaan xidigo bilaash lagu heli karayo Barcelona lagu dhisi karayo waqtiga hadda la joogo marka warbixin dheer ka diyaarisay ayaan eegi doonaa marka Zahavi waa mid kamid ah kuwa ugu caansan isla markaana laga qadariyo dunida kubadda cagta Juan Laporta cilaaqad wanaagsan baa ka dhacaysa cilaaqadoodu waxay soo bilaabatay sanadkii 2003 qadiyada waxay u noqonaysaa bilowgii marka sanadahaasi waxa jiray isku day marka uu doonayay in qayb uu kaga dhigo xidigaha Barcelona David Beckham oo la keeno garoonka Camp Nou laakiin waxaad ogeydeen ugu dambeyn naadiga malaki Real Madrid inuu u dambeeyay ninka la yiraahdo David Beckham waxna mushkiladaasi ka timid markii Beckham isagu arkay in Barcelona aysan bal heshiin wiilka badalkeedana Manchester United la heshiisay isaguna ka doortay naadiga malaki laakiin ugu dambeyn shakadu waxay ku soo afmeerantay naadiga kubadda cagta PSG inay ka soo qaataan Ronaldinho dabcan ninkan waa kuwa ugu caansan ee Israel ka soo jeeda Yurub laga qadariyo marka laga wakiilnimada markay timaado waa muhandiskii ama injineerkii hindisay wadada loo jeexayo ee lagu soo qaadan karayo xidiga Neymar Jr waayo Nasser Al-Khalifi door weyn ayaa uu ka caawiyay waayo Nasser Al-Khalifi aad buu uga caawiyay wiilkan sidii uu heli lahaa waxa jiray kulan dhexmaray isaga iyo waliba markaa Juan Laporta isla markaana Juan Laporta xitaa wuxuu xaadiray Zahavi gabadhiisa oo la guursanaya xafladda isla markaana door weyn ka qaatay sidoo kale toddobaadkan way kulmeen isla markaana waxay ka wada hadleen umuuro dhowr ah waxa la leeyahay ninka la yiraahdo Vali Ramadani oo isaguna wakiil caana aadna isugu dhow yihiin marka ninka iyo waliba ninka wakiilka u ah Pjanic ay kulmeen sidoo kale wax badan ay ka wada hadleen sidoo kale David Alaba ayuu wakiil u yahay Zahavi waxaana la sheegay in laga wada hadlay heshiiska David Alaba wararka qaar ay tilmaamayeen sidoo kale waxa jira wakiil caana oo cilaaqad wanaagsan ka dhaxayso waa injineerka caanka ah ee heshiisyada ninka la yiraahdo Jorge Mendes xidiga waaweyn oo dunida laga qadariyo ayuu markaas isagu wakiil u yahay Barcelona waxa cilaaqad kala dhaxaysa ninka la yiraahdo Juan Laporta ninka Mendes hore aan ku xasuusiyo xidiga waaweyn buu geeyay Decoba kamid ah oo marka cajiib ah oo kooxda kubadda cagta Barcelona soo maray waxa kamid ah rag waaweyn oo markaas bulshada la qadariyo Marquez oo kale Cristiano Ronaldo hadda darkaysan ayaa markaas isagu Madrid uu isagu geeyay ninkan isla markaana injineer uu ka ahaa sidoo kale ninkan saaxiibtinimo wanaagsan ayaa ka dhaxaysa isaga iyo Laporta waana wixii uu sheegay sanadkii 2013 Juan Laporta waraysi isagu bixinayay marxaladda marka dib u dhiska door weyn buu ka qaadan karayaa wakiilka lafsadiisu geesta kale ogsoonuhu sanadkii 2008 waxa loo soo bandhigay Barca inay qaadato Jose Mourinho badalka Rijkaard ay ka dhigato laakiin waxay dooratay Pep Guardiola oo marka akademiyada kooxda isagu uu leelinayay marka kadibna kooxda Barcelona koowaad loo soo dalacsiyay waqtiga waxa diiday Johan Cruyff oo doortay Pep Guardiola in la sii u arkay falsafadiisa inuu aaminsan yahay isla markaana aad iyo aad u daneynay sidoo kale hadda wuxuu wakiil u yahay Ansu Fati isla markaana Tarenka isaga ayaa wakiil u yahay Andres Silva oo Barcelona la xiriirinayo dhamaan xidigan ku sheegayo Mino Raiola waa mid kale oo caan isla markaana aad isugu dhacsanaya maamulkii Josep Maria Bartomeu laakiin cilaaqad wanaagsan baa ka dhaxaysa isaga iyo Laporta xusuuso heshiiskii Zlatan Ibrahimovic Laporta wuxuu isku dayay 2015 hadii uu ku guuleysto in Pogba uu geeyo marka kooxda kubadda cagta Barcelona Mino Raiola baana ka qayb qaadan lahaa laakiin marka ma aysan suura galin hadda wuxuu wakiil u yahay ninka la yiraahdo Erling Haaland kan ogsoonow aad buu saameyn ugu leeyahay marka laga xidigaha kubadda cagta ee wakiilka u yahay waliba xitaa uu cadaadiya sida la sheegay Mkhitaryan aad aragtano qadiyada Ibrahimovic banaanka soo dhigay sidaas daraadeed marka naadiga kubadda cagta Barcelona door weyn buu ka caawin karayaa ninka la yiraahdo Erling Haaland oo la tilmaamayo in wiilkan kooxda kubadda cagta Barcelona iman karayo sabab ku aadan marka cilaaqada wanaagsan ee marka Laporta iyo waliba ninka kale adigu maxay kula tahay in kastoo la tilmaamayo in Lukaku isku day doona laakiin badalka Haaland buu u noqon doonaa baa leeyahay ee ma aha priority-ga koowaad wuxuu noqon doonaa xidiga Erling Haaland la yiraahdo ninka baa la eegi doonaa la qiimeyn doonaa
haddii markaas iyagu ay isku fahmaanna waxay noqon doonaan kuwa markaasi wax badan laga eegayo.